shil baabuur oo aad u naxdin xun ayaa ka dhacay duleedka magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isagoo sababay dhaawacyo kala duwan walowsan jirin wax dhimasho shilkaasi baabuur markii uu dhacay ayaa goobtaasi waxa gaadhay gurmadka degdega iyadoo la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Boorame shilkaas baabuurna waxa wax ku noqday 8 ruux oo saarnaa gaadhigii galay shilkaas oo ah xajiyadaha casriga ah ee loo yaqaan hilagis Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye waa agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Awdal wuxuuna warbaahinta u xaqiijiyay ilaahay uga baryayna inuu caafimaad siiyo geeridu socdayna sidii wax ka siiyo 8 qof oo 8 mar lihiin ayay yidhi oo dad waaweyn oo naclo dhalinyaro iyo carruurta ku jirin 8daasi 8 wax ka dhaawacay madaxa ka dhaawacay madaxa dhamaantood madaxa ka dhaawacay kuwa meel kale ka dhaawacay ku jira gacmaha wada wax kale gaargaareen mid gacanta boodo inta hore mataxanuhu ku maqayahay soo maqan baa la keenay soo dhulku maqayahay hadana madaxa dhaawac ka sii qaba ilaa 3 qof baa dhaawac culus la waliba aad soo culusiin la aad soo culusiin waxa uu gudbinay xayada madaxa iyo dhibahay oo laga dhigo jiraan mid maskaxda furan baa dilaaday maadaama dhakhtar surgeon ka joogo takhasus xasnay oo ay taas oo ay ku dhacdo marka isaga ayaa markaa u gudbinay labada intii kale way joogaan diwaan la tacaalo wixii la sameeyay kale waa la sameeyay I hope inay soo wada fiicnaan doonaan waxaan wulwulay labada xaqaan gudbinay weeyii ilaahay wax uga baray inuu caafiyo wixii daawadeeda loo dadaalay bini'aadmu qaban karna waa loo qabanay shaqadan waa loo qabanay oo socota dhamaantood waxa filayaa waxa ka yimaadeen kulli maatin markiiso dib xagaas ka yimaadeen gabiila filayo gabiila yimaadeen marka dib laga yaabaa markaa kulli iska ladan in degdeg loo qaadana waa laga yaabaa inkastoo intan dambe aad u soo badanayaan dalxiisayaasha kala duwan ee iskaga kala gooshaya magaalooyinka kala duwan ee Somaliland ayaa waxa soo badanaya shilalka kala duwan walow ilaa imika aysan jirin wax qorshayaal ah oo xukuumaddu ka soo saartay arrintaasi arrintani ayaa iyaduna ku soo beegmaysa xilli maalinimadii shalayto shil aad u xun oo ka dhacay jidka u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera Jamac Hussein Jamac Dude Somali Cable TV Boorama